kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal soo dhawaada mar kale waxaan idinla wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka culus ee ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee maamulka Puntland iyo guriga hogaamiyaha Daacish Cabdiqaadir Muumin oo ay ciidamada Puntland la wareegeen gurigiisa. Wararkii ugu dambeeyay oo saaka dagaal culus ka dhacay halkaas ayaan kula wadaagi doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato janaalka Amiir Suleymaan, fadlan subscribe saar muuqaalka like saar share garee gaarsii saaxiibadaada haddii aad ayaad u mahadsantahay. ciidamada Puntland ayaa saaka qaaday howlgal balaaran oo ay ku doonayaan in kooxda Daacish kaga saaraan deegaano iyo fariisimo ay ku leeyihiin dhulka buuraha ee hoostaga degmada Qandala ee maamulka Puntland. sidoo kale ciidamada difaaca Puntland ayaa dhowr jiho ka weeraray aaga Dhasaan ee degmada Qandala oo ay ku sugnaayeen kooxda Daacish. waxa ayna ciidamada doonayaan in ay aagan ka saaraan dagaalamayaasha Daacish oo la sheegay in fariisimo ay ku leeyihiin halkaasi. dhanka kale ciidamada difaaca Puntland oo horumar badan ka sameeyay howlgaladii ugu dambeeyay ay ka sameeyeen buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay u baxay buurihii adka ee hore ugu socday howlgalka ay Puntland bilowday in ay halkaasi ka fuliso. waxaana la filayaa in ciidamada dhul hor leh ka saaraan xoogaga Daacish ee halkaasi ku sugan. saraakiisha ciidanka Puntland oo howlgalka hogaaminaysa ayaa shaaciyay in ciidankooda ay hadda ka sii siqayaan deegaano hor leh oo ay ku jiraan deegaanada Afcad, Xakookim iyo Dhasaan. deegaanadaasi ayaana la sheegayaa in ciidamada qarka u saaran yihiin lana filaya in saacadaha soo socdo ay kala wareegaan dagaalyahanada Daacish oo ku sugan buurahaasi, iyagoo dagaalyahanada Daacish ay firxadkooda ku sii cararayaan deegaanada buuraleyda ee gobolka Bari. ee ciidamada Puntland ayaa sidoo kale dagaalka xoogiisa waxa ay qaadeen saaka oo ay halkaasi kula wareegayaan sida deegaanada Dhasaan, iyagoo sheegay in ay doonayaan in dhawaan ay gacanta ku soo dhigaan sidoo kalena ay gobi ahaanba la wareegaan kooxda Daacish ee halkaasi ku sugan. ciidamada Puntland ee la dagaalanka argagixisada ayaa sidoo kale waxa ay la wareegeen guriga Cabdiqaadir Muumin oo ah hogaamiyaha ugu weyn ama ugu sareeya dhanka xukunka ururka Daacish, iyagoo gabi ahaanba helay xogta iyo guriga sidoo kalena la wareegay halkii ay ku noolaayeen hogaamiyaha ururka Daacish ee Cabdiqaadir Muumin, caruurtiisa iyo sidoo kale xaaskiisa, iyo gabi ahaanba gurigaasi la wareegay. si kastaba ha ahaatee ciidamada Puntland ayaa hadda heer gabagabo ah marsiinaya wejiga labaad ee howlgalka lagu ciribtiraya kooxda Daacish. waxa ayna ciidamada mar kale isku diyaarin doonaan howlgallo kale oo lagu afjarayo kooxda Daacish. si kastaba ha ahaatee maamulka Puntland ayaa sheegay inay ku gacan roonaadeen sidoo kalena ay gabi ahaanba la wareegeen deegaano badan oo ka tirsan buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari ee maamulka Puntland, iyadoo ciidamada ugu badan halkaasi ku sii daabuleysa sidoo kalena ay ku siqayaan ayna doonayaan in ay gacanta mar labaad ku dhigaan deegaano ay ka mid tahay Dhasaan oo ah ka tirsan degmada Qandala ee gobolkaasi Bari. si kastaba ha ahaatee Puntland ayaa howlgalkan bilowday bishii December ee sanadii hore ee 2024 muddo 3 bilood ah uu socday dagaalkaas ee maamulka Puntland waxa ay ka gaartay guulo la taaban karo, iyagoo uu maalmihii ugu dambeeyay u socdo dagaal ba'an oo ku aadan sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaanada haatan gacantooda ku jiro dagaalyahanada ururka Daacish ee ku sugan buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari ee maamulka Puntland.